bahalo waxay yihiin aan la garanayn ayaa laynaya dhammaan noloyaashii iyo dadkii ku noolaa adduunka. bahaladaas wax gumaaday male indha ay wax ku arkaan waxayse leeyihiin dhaga maqalkoodu aad u sarreeyo ayna maqli karaan caleenta geedka ka soo dhacday jabaqdeeda. waxayna qoyskaas kaliya ee adduunka ku nool ku soo haray ku wada xiriiraan luqadda gacmo ku hadalka ee dhagoolayaashu isticmaalaan. aabihi ayaa cunugiisa ka qaadaya ciyaar dhawaaq leh ama game, maadaama haddii jabaqda ama dhawaaq yar ay maqlaan bahaladu cidda iyo meesha uu ka soo fulay ay degdeg ku dilayaan. balse wiilka yar walaashiis ayaa aaladda geemka ah u soo celinaysa walaalkeedii yaraa. isna batariyadii miiska u saarnaa ayuu gashaday iyaga oo wada socda ayuuna shiday. codkii dheeraa ayaa waxaa ka argagaxay aabihii intuu islahaa badbaadi oo dhankiisa u soo cararayay ayaa waxaa uga hormaray bahaladii halkaas ayuuna wiilkii yaraa ku geeriyooday. sanad markii laga soo wareegay ayaan arkaynaa wiilka walaashiis oo aad u murugaysan maadaama ay isku canaanato inay sabab u ahayd dilka walaalkeed. qoyskani waxay isku dayayaan aamus inay noloshooda ku wataan waa adduun hadalka ku mamnuuc ka yahay. waxaan arkaynaa gabadha Regan iyo walaalkeed Marcos oo wada ciyaaraya, kadibna waxay ridayaan shamac ay iftiinsanayeen, kadibna dab ayaa isqabsanaya iyo jabaqda falka dhawaaqaysa ayaa iyaduna bilaamaysa. aabihi ayaa soo dhexgalaya maadaama jabaqda dhawaaqdeedu ay mamnuuc tahay, waxa uuna isku dayayaa inuu u damiyo dabka. hooyadii ayaa waxay u imaanaysaa aabihii waxayna uga cabanaysaa in ay aad u burnaatay maadaama ay ur leedahay. aabaha ayaa u jawaabaya si aad u qurux badan ayaad u qurxoon tahay. aabihi ayaa waxa uu yeerayaa wiilkiisa yaraa Marcos si ay u soo ugaarsadaan, balse Marcos aad ayuu cabsanayaa, waxa uuna diidayaa inuu raaco. hooyadii ayaa Marcos ku dhahaysa waxa waajib ah inaad noqoto nin adag si marka aan u duqowno aad noo ilaaliso noo xanaanayso. aabuhuna waxa uu inantiisa Regan ku amrayaa inay hooyadeed ay mar walba ay xaaladeeda ka warhayso maadaama ay ur leedahay. waxay imaanayaan meel webi ah. Marcos ayaana waxa uu aad u cabsanayay, si aad u xoogan ayuu u baqayay. aabis ayaana ku oranaya jabaqda dhawaaqa biyaha webiga ayaa naga xijaabaya inay maqlaan codkeena bahaladu ee waxba cabsan. Regan ayaa iyaduna khilaafaysa amaradii aabaheed, waxayna dhagaha gashanaysaa samaacadaha muusikada waxayna u baxaysaa banaanka. Marcos ayaa isna u sheegaya aabihiis in Regan ay aad isku canaanato maadaama ay sababta ay lahayd walaalkoodii yaraa ee dhintay. Regan ayaa waxay aadaysaa buundadii walaalkeed bahalada ku qaateen. Marcos iyo aabihii intii ay soo socdeen ayaa iyaguna waxaa jidka ay ku arkeen oday dul taagan meydka habartan oo ahayd xaaskiisa, waxaana diray bahaladii. Lee ayaa u ishaaraya odayga inuu aamuso, balse odayga noloshii ayuu ka quustay, aad ayuuna u qayrinayaa. waxa meesha imaanaya bahaladii. Lee waxa uu aamusanaya wiilkiisa yaraa Marcos, bahaladiina waxa ay dilayaan odaygii. Evelyn oo ah hooyadii reerka waxay joogtaa guriga, waxay xanuun ka dareemaysaa caloosheeda, waxaana bilaamaysa foosheeda oo timid waqti aan la filaynin. waxay ka soo socotaa dabaqa sare iyada oo ku soconaysa jaranjarada ayaa waxaa mudaya musbaar, kadibna waxay ku taraaraxaysaa jaranjaradii waxaana gacanta uga dhacaysaa dhalo yar oo ku korsamaysnayd dhulka ayayna dhaladii ku soo dhacaysaa. waxaana meesha imaanaya bahaladii oo aan sidaas uga fogeyn. Evelyn waxa ku bilaamaysa xanuunkii foosha, waxayna daaraysaa leerarkii banaanka ee guduudka ahaa, taas oo tilmaan u ah khatarta ay waajahayso, waxayna u adkaysanaysaa xanuunka foosha. aabalii waxa uu arkayaa nalalkii guduudka ahaa, waxa uuna wiilkiisa ka codsanaya inuu shido geemkii jabaqda sameynayay tuurana si uu jahwareeriyo bahalada. Evelyn waxay galaysaa suuliga, waxaana dhammaaday dulqaadkii aamuska, waxayna u qaylinaysaa si xoog leh iyada oo ay sabab u tahay xanuunkii darnaa ay dareemaysay. nasiib wanaag markaas ayaa waxa Marcos uu ridayaa geemkii oo bulale xoogan samada ku tuuraya. Regan ayaa waxay arkaysaa bulaleerka samada loo tuuray. guriga gudihiisa ayuu si tartiib ah u galayaa Lee, waxa uu arkayaa Evelyn oo ilmo dhashay oo ku dhimanaysa suuliga. Marcosna isaga oo u soo ordaya dhanka guriga ayaa waxa uu ku dhacayaa geed, kadibna waxa uu waayayaa miyirkiisa oo kooma ayuu galayaa. Master Lee ayaa Evelyn iyo ilmaheeda yarka ah waxa uu ka xanayaa qol uusan codku ka bixi karin oo ku yaala dabaqa sare, balse intii uu soo waday ayaa ilmihii oohin ku dhiftay, waxaana meeshii soo xadiray bahaladii. waxayna ku khasbanaanayaan inay dhex galiyaan sanduuq uusan codku ka soo gudbinayn ilmaha yarka ah. Regan ayaa waxaa gadaasheeda ka imaanaya bahal, kadibna waxay isku dayaysaa in aysan isdhaqdhaqaajin, balse codkii ka yeerayay sameecadda ay muusikada ka dhagaysanaysay ayaa bahalkii jahwareerinayay, kadibna meesha ayuu ka cararayaa. waxayna arkaysaa walaalkeed yaraa Marcos oo markaa koomadii ka soo baxay. aabihiina waxa uu guda galay inuu raadiyo caruurtiisii si uu u soo badbaadiyo. Regan ayaa waxay shiday dab si ay aabihii tilmaan uga dhigto meesha ay joogaan. Evelyn oo hurda ayaa waxay ku soo toosaysaa gurigii oo wada biyo noqday, bahalkuna uu guriga ku dhex jiro. waxayna ilmaheedii ka soo bixinaysaa sanduuqa si ay u badbaadiso, bahalkuna aad ayuu ugu soo dhow yahay. Regan iyo Marcos ayaa murmaya. Marcos ayaa leh aabe ayaa noo imaanaya si uu noo badbaadiyo. Reganna waxay leedahay aduu ku imaanaya, waxayna u maleynaysaa in aabaheed uu nacay maadaama ay sabab u ahayd dilkii wiilkii yaraa ee dhintay. Marcos ayaa waxaa la go'day safiito uu ku dul taagnaa, waxaana uu sameynayaa jabaq dheer, waxaana attentionka xayawaanadu u soo jeensanaya dhankiisa. Marcos oo weel raashin ah intiisii dambe ku dhex jirta ayaa isku dayay inuu ka soo baxo, waxaana caawinaysa walaashiisa ayaa iyaduna ku dhex dhacaysa meesha uu ku dhex dhacay. Lee ayaa isna u soo ordaya dhankoodii si uu badbaadiyo, balse bahalkii ayaa uga soo hormaray. markii uu damcay inuu dilo ayaa waxaa mar kale jahwareerinaya codkii sameecadda dhagaha ka baxayay ee muusiga ahaa. aabahood ayaa soo gaaraya meesha, waxa uuna laabta gelinaya caruurtiisa.
caruurta ayaa bahalka uga dhuumanaya gaari meesha yaalay. Lee ayaa isaguna faas soo qaatay, bahalkii ayaa gadaashiisa soo istaagay, waxa uuna ku dhuftay faaskii. Evelyn ayaa dhacdaas ka daawanaysa daaqada iyadoo aan far dhaqaajin karin. caruurta ayaa waxa uu bahalku ogaanaya in ay gaariga ku hoos dhuumanayaan, waxa uuna isku dayaa inuu gaariga ka hoos saaro. Lee ayaa arkaya caruurtiisa oo bahalku rabo inuu cuno, waxa uuna caruurtiisa u sheegaya inuu naftiisa u hurayo, aad ayuuna u qayrinaya si bahalku dhankiisa u soo aado. bahalka ayaana dilaya aabihii. Marcus iyo Regan ayaa la kulmaya hooyadood laabta ayna gelinayaan. Regan ayaa eegaya alaabihii aabaheed weyna ooyeysa, isla markiiba waxaa ka soo horbaxay bahalkii, waxayna daareen TV-ga si ay u jahwareeriyaan. bahalkiina waa uu jahwareeray, waxayna hubsadeen in bahalku ka cararayo codka aaladaha muusiga iyo TV-ga uusan u adkaysan karin. sidaas darteed Regan ayaa samaacadii mikrofoonka ku xirtay codkii muusigada ahaa ayaana kor u baxay. bahalkiina aad ayuu u xanuunsaday, waxayna Evelyn soo qaadatay qorig waxayna ku furtay rasaas. filimkiina intaas ayuu ku dhammaaday. daawada waxaan ka codsanaynaa muuqaalkan in aad subscribe inoo saartid, waayo sida uu inoo sheegay YouTube-ku dadka ku xiran YouTube-ka ee subscribers-ka u ah iyo kuwa kor ka daawadahay in 95% ay badan yihiin dadka kor kala socda YouTube-ka. aad baad u mahadsan tahay inaad nagu soo biirtidna, waxay noo tahay wax aad u weyn. sidoo kale inaad muuqaalka like inoo saarto waxay inoo sameynaysaa inay inoo noqoto dhiirigelin aad u weyn. aad iyo aad ayaan kaaga mahadcelinaynaa daawashadaada qiimaha badan.